ومشروع عادي وين وحرجينا إن شاء الله تعالى مردو إن أرجنه مشروعا أو تابق لي كنت واشقو إن لبقاديو مدنوي هذا كاس سحر دوبية سقينية وحوية هذه هم الأتهاجن إن شاء الله مريان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عاوة وهبين سبت سوق ليسو مالك معان هذا صور دافني رمضان لواتني سيار بعاوة هيد ساعد هذا وحاوي وطبنكي يلا واتني صدح دقيقة بي ام أما في الساعة برد كل وقت هبين نمو وقت يا مجال راسو رنتي وحان شوقنا اسمي جامعة راسو جودهان قارهان عاوة وحلقة شقينية بالبريري أما مكتوبة وحلقة شقينية عاوة runtii meeshan waxaa ka socota shaqo aad iyo aad muhiim u ah oo qof jooga oo arka oo maartay waxa weey ka qayb galamooyee uusan maartay qof kale uusan sheegi karin isku tashi aad iyo aad ka socda meesha dad aad u badan oo duqay culimo maartay waxa weey dhalinyaro dad qof kasta oo mujtamaca kamid ah ayaa maanta meesha jooga isagoo mid kasta ama qof kasta meesha yimidna runtii waqtigiisa iyo maartay wax alla wixii xirfad lahaa u huraya inuu jaamacad ugu deeqo shaqada meesha ka socotaan aragnay dadkaan qurba joogta ah runtii waa shaqo in la bogaadiyo mudan weeye dadkan hadda shaqaynaya maanta oo way soo manaayeen reero iyo waxa weeye meherada kale leeyihiin laakiin waqtigooda inta badan habeenkii laga bilaabo afurka ka bacdi ilaa iyo suxuurta dadku waxay joogaan jaamacadda raaso oo ay camalkoodii ay maartay waxa weeye meheradoodii waxay barteen iyo xirfadoodii iyo muruqoodii ay u deeqayaan inay jaamacad horumariyaan runtii dadka aniga qurba joogta yimid waxyaabahan oo kalimaan arag wax nagu cusub weeye waxa weeye waa waxyaabo in la bogaadiyo u baahan weeye waa isku tashi weeye waa nin kasta in uu qaybtiisa u ka qaato horumarinta mujtamaca weeye marka jaamacaddan raaso oo ah jaamacaddii ugu horreysay islaami ah ee laga furo waddanka Itoobiya runtii si xawliya ku socotaa dhismaha hadda socda ilaa 10 dhismo ay hadda socota oo habeen kasta laga shaqeeyaa oo habeen kasta mid laga baxay mid kale la geliyaa la shubayaa hadda waxaan taaganahay dabaq sare ee waxaan taaganahay library aan taaganahay hadda waad aragtaan dadkaas suxul duubaya ee shaqeynaya waxa weeye hadii habeen u taagan inay jaamacad horumariyaan runtii bogaadin bay mudan yihiin waxaan bogaadinayaa dadka raasa degan culimadooda cuqaashooda dhalinyaradooda haweenkooda qof alla qofkii kasta ee maartay waxa weeye mashruucan qayb ka ah kunti bogaadin mudan yahay waxaan ugu baaqayaa qurba joogta dibadda inay iyaguna qaybtooda ka qaataan haddii ahaan inay waddanka yimaadaan oo arkaan wax meesha ka socda haddii ahaan inay taageero hili hoob u gudbiyaan mashruucan ay siiyaan marka waa mashruuc aad u weyn waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala mar dhow inaan aragno mashruucan oo taabagalay oo ardadu ay dhiganayaan oo maktabaddan library-ga la fadhiyo oo galaasyada lagu jiro oo masaajidda lagu tukanayo إن شاء الله تعالى وما ذلك على الله بعزيز مركز أدوم ما سنتين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله